ururka al-shabaab ayaa sheegay in ay markii u horeysay maamulkooda ku fidiyeen dhulka ay ka arrimiso Somaliland waxayna sheegeen in ay 3 maalmood joogaan meel ciirgaaba u jirta 50 kiiloomitir. war lagu qoray warbaahinta taageerta al-shabaab ayaa lagu yiri waxaa markii u horeysay al-shabaab ay halganka ay ka wado Soomaaliya lagu fidiyay gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliya halkaas oo loogu yeero maamulka Somaliland waa sida hadalka ay u dhigeen. toddobaadkan gudihiisa ayay ahayd markii al-shabaab ay la wareegeen magaalada lagu magacaabo Gacan Maroodi oo 50 kiiloomitir u jirta magaalada Ciirgaabo dhinaca barina kaga beegan magaalada Yube ee ka tirsan gobolka Sanaag halkaas oo dadka deegaanku ay sheegeen in habeennimadii hore ee bishan 17keedii ay soo galeen kooxa ka tirsan ururka al-shabaab oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 78 inta u dhaxaysa. soo galitaanka ururka al-shabaab ee gobolka Sanaag ayaa ku soo aadaysa iyadoo xiisad kacsan ay ka taagan tahay Sanaag bari halkaas oo ku sugan yahay gudoomiyihii baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ee ay sheegeen xilka in laga qaaday.